الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي سبحانه وتعالى إيمانك وينقم النيستي iyo istoslaannimadan uu ina siiyey wuxuu inoogu soo dhiibay ifkan intuu ku abuuray axadkii ugu fadliga badnaa waa rasuulkiisii moxamed sala allahu alayh waalih wasalam wuxuuna inaga siiyey tilmaamo badan oo uu ku mudan yahay qadarin iyo xurmayn hadday tahay qalbigeenna midda ku jirta hadday tahay waxaan fal u samaynayno ama hadday tahay qowl iyo erey naga soo baxaya ilaahayna waa ku ammaanay qur-aankiisa oo wuxuu ku yidhi wainnaka la calaa khuluqin cadiim dabeecad iyo dhaqan wanaagsan oo weyn oo qadarin mudan baad leedahay waana deeq ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala isagoo aadamaha la mid ahna aadamuhu in wax dheeraayo ugu fadli badnaa aakharana darajada jannada ugu sarraysa darajatulwasiila ah ee hal qof keliya uun qaada baa ilaahay ugu deeqay oo siiyey adduunyadana ambiyada kii ugu fadli badnaa baa laga dhigay innagana aan ku mudannay ummadda muxamed sala allahu alayh wasalam inay noqoto kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummadda ugu khayr badanee umamkii ilaahay soo saaray baa tihiin ilahi wuxuu ku tilmaamay qur-aankiisa nabigu alayh salatu asalaam inay dhibi jirtay xukun kastoo dadka ku adag ama wax waajiboo la samaynaya ha noqdo ama wax xaaraanoo la deynayo oo dadka dayntiisu dhibaysa ha noqotee inuu ummadda aad ugu turi jiray una naxariis badnaa waxaana lagu tilmaamay in inta raacdana ugu bishaaraynayo liibaan labada daarooda inta diiddana cadaab iyo halaag labada daarooda uga digi jiray innagana inugu leeyahay inaan rumayno oon qadarinno oon ixtiraamno sida inoogu leeyahay inaynu raacno oynu ku dayanno oon dariiqiisii marno dhinaca kale ilahi subxana wa tacala uu inaga xarimay wax kastoo nabiga waxyeello ku ah ama aan qabanin oon ku habboonayn maqaamka qadarinta uu leeyahay ama ha noqoto wax laga rumaynayo ama ha noqoto wax af laga hadlayo ama mararka ziyaaro loo tago qabrigiisa la tago eed ziyaaranayso dhaqanka falka aad samaynayso ha noqoto qofka muuminka waxaa waajib looga dhigay iimaankana ka mid noqotay nabi maxamed jacaylkiisa sala allahu alayh alih wasalam raacistiisa qadarintiisa iyo ixtiraamkiisa iyo erey wanaagsan inaad tiraahdo marka uu ku soo mara magaciisu qofka bini aadamka ah xaq kastoo uu kugu leeyahay iyo xurmo kastoo aad u hayso erey kastoo wanaagsan ood adeegsanayso qadarin ka turjumaya mar waliba nabigu inuu la mid noqdo ma aha calayhi salaatu wasalaam inuu ka sarreeyo inuu mudan yahay baa qur-aanka laynagu baray laa tajcaluu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda rasuulka markaad u yeeraysaan eed la hadlaysaan ha ka dhigina yeeristiisiiyo la hadalkiisu saa idinku isula hadashaan oo kale ha ka dhigina haddii la yidhi sida caadigeed isula hadashaan maqaam ka sarreeya kula hadla qadarin ka weyn kula hadla ixtiraam ka weyn ugu yeera wax ka hooseeya iyo wax ka sheegiisa iyo duristiisa iyo aflagaadayntiisu waa laynaga xaaraantinimeeye meelo badan baa kitaabka iyo sunnada lagu xaaraantinimeeye maqaamka kooban dartii aayaadka waxaa ka mid a ilaahay inuu suuratu tawba ku sheegay qofka nabiga hadal dalabla ku yidhaahdaay inuu munaafiq yahay ama markii hore uu munaafiq ahay oo tani caddayn bay u noqotay
ama dhihista uu yidhi buu munaafiq ku noqonayaa. taas oo ka dhigan wuxuu mudan yahay naarta jahannama halka ugu hooseyso fi darki alasfali min annaari. munaafiqiinta ilaahay suuratu markuu tilmaamay waxaa ka mida buu yidhi ومنهم الذين يؤذون النبي kuwa nabiga dhibaa ka mida. maxay ku dhibaan? maxaa ka mida dhibkooda? ويقولون هو أذن وهي الرعب dhahaan wixii loo sheego buu iska rumaystaa. waxyaaba badan ay sheegayaan uusan nabigu rabin waxba inuu ka soo qaado oo uu yidhaahdo uu ka aamuso bay waxay u maleeyeen dhegweynimo iyo garasharayaan ku fasireen. ilaahay baa ka jawaaba wuxuu yihi qul huwa udunu khayrin lakum. idinkan sidan u qallacan inuu saa idinka aamuso oo idinka sii jeedaaba dan idinku jirta wuxuu og yahay hadduu idinkula xisaabtamo dad badan baa madaxa loo wada xiiri lahaa. inaad rabto marka jeclaysata inta lagula xisaabtamo in laguu xiiraayo adigay garasho la'aantaada tahay. qofkuna waxyaabo badan markaad maqlayso inaadan garanaynin baa ceeba, laakiin waxaa ammaana waxyaabo badan inaadan maqalooda garanaynin inaad iska dhigto oo waxyaabo badan hoosba usii dhegaysanin oo isdhaafiso. waxa nolosha lagu wada joogay qofku dad ku wadi karee ka mid tahay. ilaahayna waa rumeeya wuxuu u sheegaa layidhi, muuminiintana waa u rumeeyaa runtaa wuxuu u sheegaan. waaladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim. kuwa rasuulka ilaahay dhibaya erayga dalabta iyo wax ka sheegiisa shaqada ka dhiganayaay cadaab kulul bay leeyihiin oo gubo aakhar marka la tago. adduunkana cadaab bay mudan yihiin. suurat laxzaabna mar kale waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa kuwa dhiba lacanahum allahu fi dunya waalaakhira. ilaahay baa ku lacnaday adduunya aakharaba. waxaana layna barayaa innagana lacnad bay naga mudan yihiin. gabaldhaciyo waa beriba inaad ilaahay ugu dhowaato ka beri noqoshadooda, lacnadooda, habaarkooda baa ti alla sameeyey adni lagaa doonayay ah. wacadda lahum cadaaban muhiina. cadaab dulleeyana ilaahay waa u diyaariyey. sifada iyo dhaqanka munaafiqiinta laynooga digayaa. nabiga wax laga sheego munaafiqnimaday tilmaamayso iyo diinka baxnimadeedu rag iyo dumar waa isugu mid, waayeel iyo dhallinyarana waa isugu mid, culamo iyo caamana waa isugu mid, shacab iyo madaxna waa isugu mid. intaba waa isaga mid. waxaa isku mid ah hadduu hadalku toos yahay iyo hadduu dadban yahay isku mid waay. hadalkan aflagaadada hadduu kaskaaga soo baxay iyo hadduu hadalkaagii ka dhalatay oodan ku talagelinna isku mid way. intaasoo dhan isku mid waay. saas darteed qof kasta oo nabiga wax ka sheega haddii loo awooday ifkana unuunka in la jaruu mudan yahay. inta kalena inay lacnadaan oo ay ka beri noqdaan buu mudan yahay. inta waa inta uu mudan yahay. qof walbana waajibkii mudnaa qof walbaba intuu awoodo oo fattaqu llaaha ma statactum ah baa kaga aadan. qofka insaankii dhinacii uu kaga gaaloobay haddii ilaahay ka aqbalo wuu ka toobadkeeni karaa. dhinacii ka dhashay ee dil iyo ciddii awooddo ahaydse boqol han toobadkeena hadduu yidhahda kama dhacayo. haddaad qof disho waan toobadkeena qisaas kuma dhacdo. hadduu qof hore u guursaday soo zinaystana xaddii rajmigu astakfirullah kuma dhacdo. haddii xatooyo lagugu soo qabtoy kugu sugnaato maxkamadna waan toobadkeena gacangoyn kuma dhammaato. toobaduna waa gaar, xadduna waa gaar. mas'aladani masaa'ilkaasay la ka mid tahay. mas'alada xukunka uu mutay adduunyada waa xukun xad ah, waan toobadkeena kuma dhaco. haddii xaddii laga fuliyo dee toobadiisu khaalis ahayd ilaahayna ka aqbalo waa laga yaabaa aakhare inay anfacdo.
laakiin towbadu adduunka xadka sharciga ee waajibay ma rido. waxaan rabaa inaan ku gawaado islaanta nabiga aflagaadaysay baan dad arkayay leh aan ka fiirsanay hadalkooda, waa qof waalan leh, ma waalle way miyir qabtaa. idinku waxaad aragteen qof waalan oo qaanuunka waddanka kala garanayo iska ilaalinaya inuu ku qaldamo, xisaabta lacagta u soo dhacda xidhanayo oon shilin ka qaldamin, gaadhigiisa watoo waddada laydadka ka istaaga gurigiisana u galbada, adduunyadana kala goosha oon weytingii iyo diyaaradduu raacaya ka qaldamin. markii nabiga la caayayana waa la waalan yaho garasho ma laha. waxaas qof miyir qaba looma akhriyo, qof wax garanayana looma sheego. inta kale caqligayga waan qabaa, marka nabiga caayana waan waallahay, waxaas ma shaqayso. waxaas yaan la idiin sheegin beenta ah. qofkani wuu miyir qabaa, ma waalla. wuxuu sameeyeyna kas iyo ku talagal buu u sameeyey. innagoon dhalan qarniganna aan jirin baxuunka sharciga waxaa qofka sameeyana uu yiilay qur-aanka ku soo degay. xukunku xukun hadda la dhalinaya ma aha, masale la ijtihaadayana ma aha, masale ijtihaad hadda ahna ma aha. waa masalo kitaabka iyo sunnaduna sheegeen, xukunkeedana xilligii nabiga fulay. qofka gadaal ka yimid ee sameeyana isagaa khadkii xirnaa kocsaa ka sugu dhacay, isagaa galay, cidi kuma ridin. waajibka dadka muslimiinta ahi guud ahaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan iraahdo, waxaan rumaysnaya waxaa waajib ku ah dhammaan inay bologareeyaan. waxaa xumaanta inaad dhegaysato, dhegahaagu maqlaan cayda nabiga, war jacaylka raaraadinta iska daaya. waxaasoo dhan waxay u baahan tahay, waa dhexdaas waxaan arkaya qolyaha heesayo dowlad bay wax ka sheegeeno taageerayaashii dowladdan isleek wax la yidhahda sameeyo waa laga saaray. haddee in yar dowlado taageersanaa intay farta u foorariyeen laga saaray, inta nabiga la caayiyey ama malaayiin baa fartaa saacad daqiiqad foorarisan haba la saare, oo horta meeluu ku yaalla ku jiraba hala waaya. marka koowaad. marka labaad, qofka lacag doonka ah ee cayda nabiga dad badan ha soo galaan oo YouTube lacag kaga hela leh, ma intaad u buuxisaan baad lacagtiina kow ugu shubaysaan, isnaad wada bologaraysaan wey. adigiiba haddaad sii gelayso oo hadafkii cayda laga lahaa nabigaba aad sii xaqiijinayso ood sii camirayso, lacagna ugu sii shubaysahay, ma caydii nabiga iyo fidinteedaad qayb ka qaadatay bise ka hortagga aad qayb ka tahay? fal bay u baahan tahay ee af iyo eray uma baahna. waxa ugu yaree fal aan samayn karnana soo lama nabigu ma dhihi calayhi salaatu wasalaam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan. halkan adcafu liimaanku iska xidh waaye. wixii ka soo haray muxuu yahay? lawad wey, sii sheergaree wey, anna ii soo dir waaye. waxaa inta aad qaybiso caydii baad qayb ka tahay. wax baciida maaha xukunkii laftiisa inaad qaadato, adoo samayn kara inaad qayb ka noqoto ka hortagga iyo tirtirkana inuu jiro lacag lagu helaad qayb ka noqoto, kolla dembi ka badbaadi maysid. ma gaaraysaa gaalnimadii iyo dadkii caayayna waa masalo baaristeeda u baahan. masaladani ma fududa, waa cirdigii iyo sharaftii nebi maxamed sal ly slam. asalkeeduna shiica iyo munaafiqiin bay ka soo jeedaa. caaisha nabiga in lagu duro 99 miyay ahaydna xamar bay ahayd, mid Soomaaliya la istaagay dasuuqi oo isla mas'aladan lafteeda uu ku durayay. marka munaafiqiintu way soo celceliyaan. ilaahay ka cabsada, qaybinta ka daaya, ku garabsiinta ka daaya, ka hortaggeedana qayb ka noqda. ilahi subxaana wa tacaala xaqa allah inagu sugo. ilahina subxaana wa tacaala iimaan iyo islaamnimana allah nagu nooleeyo, iyadana allah inagu dilo.
subxaanaka allah bixamdik allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana wacdina min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma ina nasaluka ridaaka waljanna ونعوذ بك من سخطك ومن النار واقم الصلاه